qodobka ugu horeeya waxaa weeye lagu garto qofka masxuurka ay la sixiray haddii qofka uu ku riyoodo arko afkiisa oo ay kasoo baxayaan xayawaan noocu doonaba ha ahaado xayawaankaas midka duurjoogta ha ahaado midka maaragtay dadka ku dhex nool ee dadka dhex jooga ha ahaado afkiisay ka baxayaan sidoo kale haddii qofka uu arko jirkiisa meel ka mid ah oo dhiig ka baxayo waxay ka mid tahay qofkaasi inuu yahay qof masxuur ah ee la sixiray qodobkan kale ee saddexaad qofka haddii isku arko riyada dhexdeeda kaadidiioo ku dhagaysa oo lagu dhajinayo inuu kaadiyo rabaa kaadidii baa ku dhagaysa dadka qaar run bayba moodaan oo way soo boodaan oo hurdadii baa ka tagta waa argagaxayaa meesha waxaa xanuunaysa xibinkii meesha laga kaadinayay rag iyo dumarba way xanuunaysaa xanuun zaa'id ah ka qabanaya riyadaas hadduu qofka arko waxay ka mid tahay calaamadaha sixir tafriiq lagu garto inuu qofkaasi sixiran yahay sixir tafriiq ood wada taqaanaan ninka iyo xaaskiisa lagu kala geeyo shirkadaha dadka wada shaqaysta ee ganacsiga ku wada jiro lagu kala ceeriyo caruurta iyo waalidkooda lagu kala geeyo wayna ismaqli karin la isku diro tafriiq xitaa madaxda waaweyn baa loo adeegsadaa ee dowladaha ayaa loo adeegsadaa in lagu kala geeyo ninkii madaxda shala suu u fiicnaa ood ogeyd waxaad arkaysaa asagoo marka iyagoo is haysto oo madaxa iskula jiro ayaad arkaysaa oo dhanna isu raacila waa waxa maanta na haystee sixir tafriiq baa la yidhaha qayb sixirka tafriiq ka mid ah ayaa la sameeyaa marka calaamadahaasina ka mid شوي بشارو warheede waa maxay bishaaradu soo ma ogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayay oo Dr. Axmed Cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga boqolka qof igu dhex darayeen haddaba ina keen aan booqanay Dr. Axmed Cilaaj laga raysay wixii hore Al-Hilaal Herbal Online waa xarun daawo dhireed oo leh goob jiifa bukaanku ku nasto ilaa uu ka bogsan laguna daaweyn sidoo kale Al-Hilaal Herbal Online waxay leedahay gargaarka degdega ah oo qofka xanuunsanaya gurigiisa lagu soo daaweyni Al-Hilaal Herbal Online waxa kale oo laga daaweyn macaanka dhiigkarka rheumatismka maqaarka kili xanuunka massage toobin waafaqsan sunnada allergiga gastriga iyo daawo ka caawinaysa dhalmalaanta jinka iyo umusabiyaanka xarunta Al-Hilaal Herbal Online waxay ka daaweynaysaa riyooyinka baqdinta leh iyo qarowga ayada uu diyaar kugu yahay specialist Dr. Axmed Cilaaj daawadiisana lagu caafimaaday haddaba waxba yaan hadal kugu daalinine soo booqo xarunta Al-Hilaal Herbal Online oo ku taala xaafadda Islii Second Avenue gaar ahaan qaybta 7 Street wixii faafaynta si dheer kala xiriir telefoon lambarka eber 7 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إن شاء الله تعالى هدو إلهي سبحانه وتعالى كرر لنقضه سيدي أنو كبالان سنين با إن أنو سي ودنو تفسير انت ريوينك أيام حربا ولا لها إن المركة هرغوشاقو رياضة لفسير أيو inaad ogaataan in ay tahay riyooyin ay fasireen niman culimo ah nimankaas culimada oo fasiray ee kitaabada ka qoray ma ahan niman waxyi ku soo degay ee waxyigaasi ayagu markaasi dadka u sheegaya ma aha cilmigooda iyo researchkii ay sameeyeen ayay qoreen oo kitaabo ka qoreen oo ka diyaariyeen oo riyadii ku fasireen رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض إلهي سبحانه وتعالى نبي يوسف عليه السلام وحو بري ملك جلسيك كسكو قاب كريوين كله فسره إذا مركا قلبي وين تجلسوا اعتقاد السنة riyooyinkan culimadu ay qoreen oo ay fasireen oo kitaabadu ka qoreen in la arki karo wixii lagu riyooday si practical ah
inaan la arki karinna waa inaad qalbiga gelisaa labadaba. qalbiga waa inaadan gelinin riyooyinkan aan fasirayno oo culimmada aan kasoo xiganayno. haddaad ku riyooto wixii ayaga ahaa 100% inay yihiin, qalbiga ha gelinin, caqiidadana ha iska hadlaynin. laakiin barnaamijkani waa barnaamij riyada la fasirayo. marka riyadan la fasirayo waa cilmi wey, dhici kara, wax dhici kara wey, garanaysa, waa wax dhici karo, laakiin maahan wax 100% kugu dhacay haddaad riyada aragto. sidaa la soco. marka qodobka ugu horeeya waxaa weeye lagu garto qofka masxuurka ay la sixiray. haddii qofka uu ku riyoodo arko afkiisa oo ay kasoo baxayaan xayawaan, noocu doonaba ha ahaado xayawaankaas, midka duurjoogta ha ahaado, midka maaragtay dadka ku dhex nool ee dadka dhex jooga ha ahaado, afkiisay ka baxayaan. sidoo kale haddii qofka uu arko jirkiisa meel ka mid ah oo dhiig ka baxayo, waxay ka mid tahay qofkaasi inuu yahay qof masxuur ah ee la sixiray. qodobkan kale ee saddexaad, qofka haddii uu isku arko riyada dhexdeeda kaadidii ku dhagaysa oo lagu dhajinayo, inuu kaadiyo rabaa, kaadidii baa ku dhagaysa. dadka qaar run bayba moodaan oo way soo boodaan oo hurdadii baa ka tagta, waa argagaxaya. meesha waxaa xanuunaysa xibinkii meesha laga kaadinayay, rag iyo dumarba way xanuunaysaa, xanuun zaa'id ah ka qabanaya. riyadaas hadduu qofka arko waxay ka mid tahay calaamadaha sixir tafriiq lagu garto inuu qofkaasi sixiran yahay. sixir tafriiq ood wada taqaanaan, ninka iyo xaaskiisa lagu kala geeyo, shirkadaha dadka wada shaqaysta ee ganacsiga ku wada jiro lagu kala ceeriyo, caruurta iyo waalidkooda lagu kala geeyo, wayna ismaqli karin, la isku diro. tafriiq xitaa madaxda waaweyn baa loo adeegsadaa, dowladaha ayaa loo adeegsadaa in lagu kala geeyo. ninkii madaxda shala suu u fiicnaa ood ogeyd, waxaad arkaysaa asagoo marka ayagoo is haysto oo madaxa iskula jiro ayaad arkaysaa, oo dhanna isu raacila. waa waxa maanta na haystee sixir tafriiq baa la yidhaha. qayb sixir tafriiq ka mid ah ayaa la sameeyaa. marka calaamadahaasina ka mid ah. qofka haddii uu ku riyoodo riyo argagax leh, cabsi leh, oo aada u naxayo, gariirayo, haddana isu arko qof daciif ah inuu yahay. maalan waxbuu arkayaa, wixii uu arkayay kuma dhiiranayo, wixii ayaga ahaa maalan mas buu arkayaa fool xun ama bahal aada u fool xun, kuma dhiiranayo wixii ayaga ahaa inuu la dagaalo ama iska celiyo, laakiin wuxuu arkayaa isagoo daciif sii noqonaya oo u jilicsan wixii ceyrsanayay ama ka argagixinayay, asagoo u jilicsan ayuu arkayaa. min calaamaad waxay ka mid tahay qofkaasi in sixir tafriiq uu haysto. sixirka tafriiqa ah, haweenaydu ninkeedu waxay u arkaysaa qaab fool xun, weji fool xun, dhaqan fool xun, waxaasoo dhan ayay ka arkaysaa. ma arki karta haweenaydiisii wuxuu u arkayaa sidii uu ku yaqaanay maahan siyaabo kale, way la fool xumaanaysaa. yacni korkeeda kulayl ka baxay, kulayl aan la ogeyn meeluu ka imaanayo, sariirta uga cararayaa, gogashibuu maaragtay xaggii gogashii uga cararayaa, kulayl zaa'idaha ka baxaya. khilaafkuna waa joogto. waxaa lagu garataa qofka sixirkaas qabo, labada qof oo sixirkaa qabtay tafriiqa lagu sameeyey ee la kala geeyey, gartooda inta la galo dhan la ysuguma raaco. gartoodaa la gelayaa, odayaalbaa wax xalinayo, wixii ay odayaasha xaliyeen waxaa laga soo istaagayaa diidmo. ayaga dhexdoodana waxma xalisan karaan oo isma fahmayaan, maba wada hadli karaanba, wejiga isma siin karaan. labadooda wejiga isma siin karaan, isma arki karaan, mana wada hadli karaan, go-aanna meel ma wada dhigan karaan. haddii arrintooda la galana xal lagama gaaro. labada qof oo sixir tafriiq uu haysto ee xagga guriga ku saabsan, xitaa yacni nooc tafriiq uu yahay oo dhan, ilaa la cilaajiyo oo la daaweeyo, ciladaasi waa cilad joogto ah.
wax muwaafaqo oo la yeelanaya male ayagana ma yeelanayaan dadkii barnaamijkaas galayna ayaguna sidoo kale waa ku kala tagayaan arrinta khilaaf baa ka dhalanaya meesha